السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتبط كبار وحارتي آدي أبو مهدي طليردي قبلي ورشي سواء بلي حلفت أن قروح بضن أما third annual international conference of Somali State Organizing Region 2021 runtii markii aniga laga soo xiriiray la ii sheegay panelka inaan ka mid ahay Turkiga joogay Istanbul waxay ahayd ilaa 3 bilood ka hor meelahaas energy iyo effort iyo dadaal baa la soo geliyay hawshan iyada dadka soo qayb galay mataqaanay khiyaarta hooyooyinka odayaasha gabdhaha dhalinyarada aqoonyahanka culimada aad bay uga mataqaanay u mahadsan yihiin topiga loo ka hadlayno waxaa la yiraahdaa politics and government marka wax yar baan rabaa ku soo koobno su'aalaha kale noo dambeeya waxaan rabaa inaan ku bilaabo doodayda يعني why would Ethiopia never attain a just established system of governance Ethiopia sababta waddanka Ethiopia laga weligeed bay cadaalad uga dhicin dawlad sababta oo quman ay u helin ilaa iyo dalka Ethiopia ama modern Ethiopia waddanka la yiraahdo empire waxay ku bilaabatay lagu dhisay xoog iyo dagaal iyo bob milk ninka la jiro waxa war just dadka war ku dhaqamo aha waxaan in Malaysia haysto oo xoog Malaysia intuu urursaday aaday dad dhulkood ormo dhulkood Southern nations dhulkood xoog qabsaday gaaleeyay ka qaatay beerahoodii gabdhahoodii kursaday diintii dadkii nooca marka waddanka nooca ku dhismay ee cadaalad ma imanayso 160 sano ormada la haystay inaga 72 sano weeye kusraa afjeed markii laga soo baro 1948 ilaa hadda waa 72 years waxaan markaa inaan wax yar aan soo dhaadhaco what are the key challenges ugu weyn hadda Ethiopia ka jira maxay yihiin key challenges ka hadda Ethiopia ugu weyn ama ninkan leeyahay hadda waddanka prime minister ka haysta waa buugii oo qoray midhamaan la dhihi jiray buuggaasi wuxuu ahaa doctrine isaga isku burburiyey يعني إثيوبيا waxay ka soo gudubtay philosophy يعني Americanization one language one culture one religion wax walba aan oo laga soo gudbay 30 sano ka hor oo loo gudbay markaa ethnic federalism ayuu wuxuu dooray inuu dib ugu celiyo mataqaanaa wixii marka madamaarka buug uu qoray ee garanaysaan halkaas ayuu horta ninkan ku fashilmay ama waddanka dhibkiisu challenge uu ka bilowday wuxuu luus gareeyay taageeradii dadkii oromada ahaa wadawtiin إنه يطلع لنا بدا وحين لدينا عبدي وكانها أبي عبدي إكبر بها لابد تجيب لنا تشقيرين لابد الله ما هو أرمي يمثلنا يقول كذا كذا Somali State كذا لابد تفهم صوب بارسل the only difference وحوي قارو أي أفكر بدي تجيب له قارو هاي movement ومحكى عن هذه النادي قرار جوار محمد نيشان صاحبه قارو مركي تجيب له system كي إبرة ماشى كسرتي أبي iyo oromadii elite ay OPDO gaha sida ina kuwa xisbiga gobolka maxalla Somali waxaas dimuqraadic kuwaas oo baxayeen oo ay nimanka Tigray u sameysteen dadkii markaa meesha keenay abi ee qeyro dhigi jiray Jawar Maxamed Baqada ka badan oromada ay base ka waxa gulus galay because of madama ahmar buuga madama ka qortay oo philosophy-ga u sheegtay inta waxa dheeraa qolka saddexaad the so called mataqaanay Horn African Security Pact farmaajo iyo mataqaanay afwarka iyo isagoo wada galeen waxa la isku sheegay dream bana oo mataqaanay ujeedadiisu ah in la dominate gareeyo geeska Africa in the next 10 years first waxay leeyahay mataqaanay aan Tigray ka taqrasno second to Galali Puntland Somaliland aan saddex goob isku wada sanad marka way yani waa false dream iyo waxyaabo mataqaanay lagu sababta marka hadda civil war ama dhiiga daadanaya iyo burbur waa qaba aan Ethiopia inay burburtay waxaan qabaa in Ethiopia cliff ama boorta ka dhacay ka soo noqon karin sala ii sheegay inaga dad Soomaali marka aan civil war baa dhacay inaga dad Soomaali oo Islaam ah oo wada xiriir xigaa wada baynu islaynay 30 sano isku malaaday imagine dad aan isku diin ahayn oo isku luqad ahayn oo isku aan mataqaanay isku soo hadan oo isdilaya oo isku raacay waxa weeyaan dagaalkan Ethiopia hadda bilowday
هذا الصعوبة هذا اللي سواه أي منطقة ما يتلاقي لا تخلص منه لا يبقى سودويين صدق عريمات باصابوها هذا دايرك وحاجة لي أو قرشية صدق جروب أبي وربي دريم يعني الموناركي يبقى المسكن هذا بقى التطبيقات بهوية يقول رياضي شكل نوعاسة من كل الأفوارق أو ربي ريفنجي أرجوسي 1998 دقيقة شوفك أرجوستو border working برامية سرابسة هي أحمارة ويقول بدي تدرس يومينك يونيكي ما يوهانس كتير يقول بدي أركز في حياتي نوع اسمه هستين صدق هذا الجروب ونوع بوجهة كوريا وقولي هاي بدي أركز كتير الوقت وجهة الوحياة هاي كتير ما تخلصوا أنت كلامش وبدا كلامك أنا لما مشون تيمرك واحد على إنه إثيوبيا كيسو كرايس آدي أدوين هذا وقتي قبل كتكراك قبل كحمارة يبشرون كون اللي هذا واحد ولدي كم شفت شعب بحري سكولدي كتكا باريه كتكا حفيظ الشنا كتكا قريه قاعد ضياله وول مليون قري كمان بشعب يبلغ عقلي يا الحكومة يا مرك every ethnic group أو متغناي أو مات إثيوبيا كم ذا دكتور محمود وقاس وهذا غير كسرها ويسأل لوك ويسوي لوك حرمة متغناي حق زكاته there is no way Ethiopia is going to discover more katam. Inta markaan arrimaha Ethiopia aan kaga soo waxaysmo kulli su'aalaha kaga jawaabdo wixii kale waxaan rabaa inaan markaan dhaho inaga what's the way forward for the Somali region inaga as Somali ahaan waxaa wayga inoo banaan u yahay waxa ayaan daraa anuu kala hadlay arrintan horta 2018kii abaalka markuu iyadu martiqaaya ku jiray arabkii ضد الجيبة كملها نكين جوارح حنية وذا سعودي وارسكو أرنا هناك كلها مثلا بضحك إلا هاي مدرالي هنا بدو وامش شيء وحال مقع عن هيرو الوضع وحلمني هاي مقع أبو ضد بعديك ولا يعرضك ولا يشرفت ولا إذا كسروا الفكرة بالغوبة النسانية إذنك وحال إذن بحيث ولا مقع إذنك يواحد إذن مثلا نايت هاجرة ولا يدخل تيمبريو دولتي عبدي واحد كنت بصرية أو واحد هيجا لليه توجيه أنا قلت له كذا أنت أصلا بدك لو حنوصل لها صدق حرمات قبل كالصومالي ده co immediate cessation of hostilities أو كأولف DDS ما كمان عملوا جوجا total إلا توجيه هذا لا مثلا حالة الرسوم بالرئيسوتا وحنا critical issue وقت الإثيوبي إنه كانوا بطالة جيابا سيد أخصائي إنه وصل مثلا national conference أو ضد إليت لو حكرنا علماء أقوياء ورد بالشدة هواك سوي ماذا مثل سيد حالة الدار هي أو حيث هاي ويلش نيو بوليس كاب هذين داون أيام أو إلى مقر أيام دجال كان كسر على النظر إثيوبيا دجال الصوماليين معها دجال شوق كلنا معها بورلي أحمر يفكر أحمر إن لورد إنتوا الحق معها كنا نقول مايو قديم الصومال نقول دفاع مايو هقول من ماشى